kulaha qoftan dhowr jeer ayay igu adkaysay wayna shaqo jeceshahay laakiin markan waa markii ugu dambeysay ee habar shiish aan ku dili lahaa. qisadan oo ah mid dhaba waxaa bartiisa Facebook ku daabacay Xasan Salwo oo ka mid ah dhalinyarta Soomaaliyeed. waxa uuna yiri nin ayaa isoo wacay waxa uuna igu yiri saaxiibow gabar ayaan kuu keenayaa ee waxaad iskaga dhigtaa agaasimaha wasaaradda Hiblaayo. aniga oo yaaban ayaan ku iri kadibna ama markaad ii keento maxaan sameeyaa. waxa uu igu yiri waxaad ku dhahdaa gabaray warkaagu waa isoo gaaray shaqadiina waa lagu helay wax yar ayaa ku dhiman. anigoo si yaaban ayaan ninkii ku iri saaxiibow maxaa beenta intaas la eg kugu wata. kulaha qoftan dhowr jeer ayay igu adkaysay wayna shaqo jeceshahay laakiin markan waa markii ugu dambeysay ee habar shiish aan ku dili lahaa. wariya dhammaantiis ballantii aniga iyo gabadha waa caawa weliba aniga oo ah agaasimaha wasaaradda Hiblaayo. anigu wixii aan dhihi lahaa ka hor dhici maayo laakiin waxaan rabaa marka hore inaan arko wajigeeda. waa intaas oo aan aqoonsadaa ama ay qaraabada noqotaa. bal idinkuna taladiina soo daaya. inkastoo qisadan ay tahay qiso dhaba sida naloo sheegay haddana Xasan Salwo ayaa bartiisa Facebook ku qoray mana ahan qiso isaga ku dhacday ee waa mid uu soo wariyay. badanaa arrimaha caynkana way ka dhacaan gudaha Soomaaliya gaar ahaan goobaha dumarku ay shaqada u raadsadaan sida xafiisyada dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay.